gabadhan aad meeshan ku aragto iyadoo gurigeeda iska joogta oo caruurteeda la joogta unbay aayar askartu albaabka soo jabisay gabadha hal mar idinka daba geeyo gabadhaani waa gabadh Jarmalka joogta oo badanaa iyadu isku mashquusha dadku maadaama waxyaabo kale ku mashquulaan iyadaas ku mashquusho waxay haysataa 12 caruura macnaha qof qurbaha 12 caruur ku haya wallahi billahi shaqa u taala sababtoo ah qurbaha hal qof lagu ma hayn karo oo macnaha ciyaalku aad bisaga dib badan yihiin oo idinku was garan kartiin ma u maleynaya gabadhan waa gabadh marna af Jarmal ku hadasha marna af Soomaali ku hadasha macnaha kolba keerabtay gashataa oo macnaha waa qof dad Jarmalna ay yaqaanaan Soomaalida qaarna ay yaqaanaan gabadhan marka waxa dhacday iyadoo gurigeeda iska joogta in askarta email loo qoro emailkaasoo ah in ay gabadhaani rabto in ay isdisho guriga ay ku dhex jirtana ay rabto in ay gubto qofka message-ka qoraya maaha qof kale oo macnaha iskama dhigaayo qof kale ee wuxuu leeyahay gabadhaas baan ahay anigu waan isdilayaa guriga aan ku jirno waan gubayaa hal iga soo gaadhay marka askarta Jarmalku waxay og yihiin wax depression la yiraahdo inuu jiro oo macnaha qofku isdili karada ay macquul tahay kadib waxa dhacday askartii guriga ha timaado haddaba gabadhaani gabadh shaqaysiga jirtay ahayd oo macnaha dad wax ka soo iibsaday oo wax ka soo gatay ay rabteen alaabteeda u xirto kadibna ay u dirto albaabka hore furiisi ma hayso caruurta ilaashanaysa waa qof 12 caruur haya askartii albaabka soo garaacdo soo garaacitaan intay dhaaftay askartii albaabka haba soo jabisaba albaabka la soo jabinayo marka run laga hadlo waa albaab adag albaabadan qolkeena ku yaalo kala maaha waa albaab aad u adag wayna la hadlaysaa waxay leedahay maxaa dhacay furahan soo qaaday ay suga gabadhii ay dhashay la sax ku leedahay furaha soo qaad oo taleefanka soo qaad askartaana waa dad laga soo dhaadhiciyay in la isdilayo albaabkii waaba soo jabiyeen baba adu gabadhii live ba ku jirtay live-kii bay ka qaadeen live-kii bay damiyeen gidaadkii ku qabteen sayid sheegaysay oo macnaha gacmaheeda nabarra ka yar muuqday kadibna gabadhii banaanka la keenay dadkaana san hore idinku sheegay isdilitaan iyo qof baa midi haysta iyo qof baa baaskoolada soo baxay waxyaabaha aad uga baqaan meesha waxa imaaday intaas oo ambulance meesha waxa imaaday intaas oo askar banaanka la soo fariisiyay ugu dambeyntii aba askartu waxay ogaatay gabadhaani inayna isdilayn oo macnaha qof caadi tahay maxaa dhacay marka in raali geliyo Soomaa lama raali gelin kuwii macnaha ka shaqeynaya caafimaadkan intay soo eegeen bay ku dhaheen hadda soo caadi ma tiid ha ayada khirba ma ku reejinaa ka tagaynaa marka iyadu wali waxay la yaaban tahay isweydiinaysaa yaa waay qofka email-kan qoray aan laakiin wali waxa la yaabanahay askartu way ay u dabageli weeyday email-kan iyo meesha laga soo diray ilaa askartu awood u leedahay message hadan maanta diro qolka aan ka diray dhaxdeeda inay soo gashay marka aanu fikirno waxaas dhahay cunsurinimo iska jirta koow naagtu waa naag madow laba waa muslim saddexna waa qaxootide macnaha askarta they don't care waxaas waxba kama gelin iyaga marka aanu waxaas dhahay waa qof macnaha cunsuriya oo TikTok-teeda daawada oo macnaha arkay inay gabadhaani 12 caruur haysato nolosheedu iska okay tahay iyadoo qaxootiga qofka wadan ku dhashay ama kaga soo horeeyay ay ka nolol qurxan tahay markuu waxa arkay qofkaan uu cunsur yahay wixii baa dhibay kadibna sababtaas inuu qofku waxaan u qoray baan aanu maleynaya marka muhiimadu waxa weeyaan inuu cadow waa badan yahay noloshaan waxba la iskuma ogolo ee caruurtiina iyo dadkiina iyo wixii idin dhalay fadlan ka warhaaya khirba ma ilaa jeeniya